caalamka iyo wararkii ka dambeeyay dunida qodobada aad ku daawan doontaan caawa ama maanta waxa ugu dooron waqooyiga Korea oo loo taaglayahay isla markaana markabkii labaad ee shidaal soo la qabtay ruushka oo ku yeeshay iyo marxaladda arrintaas oo markaasi jahawareer ku ah Mareykanka iyo dunida sidoo kale waxa ku daawan doontaan dad ku dhintay banaanbaxyo wali si xoog badan uga soconaya dalka Iran iyo khalkhal baahsan oo dawladda soo food saaray Greega oo markaasi sheegay in uu joojinayo inuu siiyo magangeliyo xubno ay daba socotay dawladda Turkiga qodobadaas Emmanuel Macron ayaa war qoraal ah soo saaray isla markaana ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in ay dabcan uu jiri doono meelaha kulan muhiim ah oo la yeelan doono madaxweynaha dalka Turkiga 5 bisha Janaayo warkan qoraalka ee ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee dalkaasi Faransiiska ayaa waxa lagu sheegay in soo dhaweynta madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo kulanka labada hogaamiye ay diiradda ku saari doonaan qodobo waaweyn oo muhiim ah oo ugu horeysay baa lidhi qatiyada magaalada Qudus iyo waliba dalka Syria iyo sida ay noqon doonto Macron oo la sheegay inuu ka mid yahay hogaamiyaasha ugu dhow ee reer galbeedka madaxweynaha Turkiga ayaa wuxuu sheegay in diiradda lagu saari doono marxaladda uu ku sugan yahay dalkaasi Syria ee markaas la doonayo in lagu badbaadiyo shacabka reer Syria ee dhibaatada xooggan muddada 7 sano ay ku haysato dalkooda hooyo kuwaas oo haatan si xooggan ay markaasi u dhaxmarayso dagaal sokeeyo halkaasi ka jira iyo faragelin baahsan oo dalal weyn oo caalamka ay ku hayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa la sheegay in sidoo kale miiska saari doono halka Faransiiska uu ka taagan yahay qatiyada Qudus iyadoo oo madaxweyne Macron uu dhowr jeer hore ku celceliyay in arrinta ku saabsan magaalada Qudus ee safaaradda u raraya Mareykanku ay noqon doonto mid uun horisa colaada u dhaxaysa Falastiin iyo Yuhuud isla markaana aysan wax tar iyo meel martoona noqon doonin asagoo hata ka horna u sheegay hogaamiyaha Yuhuuda Netanyahu in arrintaas aysan wax tar u noqon doonin Israa'iil isla markaana ay geed sare ku laali doonto ayuu yiri dadaaladii nabadda iyo tubta wada hadal waxaa sidoo kale aqalkaasi looga taliyo magaalada Paris laga sheegay in sidoo kale isweydiin doona baa lidhi oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wax laga weydiin doono arrimaha waxaa la xuquuq insaanka ee dalkiisa sidoo kale labada hogaamiye ay si weyn uga wada hadli doonaan sida ay tahay in mustaqbalka dalkaasi Syria loo galo oo markaasi loo jeeyo iyadoo dhawaan uu sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in ilaa iyo inta Assad meesha la dhaafinayo oo madaxweynaha dalkaasi Syria ee aysan jiri doonin buuri in guul weyn laga gaaro arrinta ku saabsan in dalkaasi uu nabadoobo ama markaasi uu noqdo dal nabad halka nagala socotaana waa iyo booliiska dalkaasi Kenya ayaa sheegay inay dhinteen 30 ruux kadib markii laba baabuur ay isku hardiyeen dalkaas galbeedka dalkaasi Kenya gaari bas ah ayaa waxa ay si xun isugu dhaceen baa leeyahay gaari xamuul ah kaasoo la sheegay inay ku dhinteen dad lixaali shil gaari ayaa ka dhacay aroornimadii hore ee xaddi ama saaka wado weyn oo ku taala galbeedka Kenya oo isku xidha magaalooyinka Nakuru iyo Eldoret 18 qof oo dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalada kuwaas xaaladooda qaarkood ay liidato wadooyinka Kenya ayaa inta badan khatartu ay ku badan tahay xilliyadan oo kale alaaba marka uu sanadku dhamaanayo kadib marka dadku ay inta badan dhammaan inay booqdaan magaalooyinka waaweyn isla markaana ay dadku ay soo fasaxa ay u soo baxaan shil noocan oo kale ayaa ka dhacay isla goobtan horaantii sanadkan iyadoo dad badan gixaya basaska iyo baabuurta waaweyn ee xamuulka ay si markaasi xawaare xooggan ku gaxayaan waxaana taas sababtaa inta badan in dad badan ay leedaan ama ay ku dhintaan markaasi baabuurta isku dhacda oo inta badan sababta dhimasho